Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal waa idin salaamay mar kale iyo barnaamijyadeennii scholarship-yada caalamka waxaan idin ballan qaaday inaan idin soo gudbin doono dhammaan scholarship-yada mise deeqaha waxbarasho ee caalamka kuwaasoo ay ka faa'iideysan karaan dhalinta Soomaaliyeed meel kasta oo dunida ay ka joogaan maanta waxaan idin wadaa program scholarship oo alaaba ay bixiso dowladda Talyaaniga programkan inta badan waxaa ka faa'iideysan kara dad Soomaaliyeed oo badan oo wadamada caalamka weliba Afrika gaar ahaan iyo Asia degan ayaa ka faa'iideysan kara programkani waa program oo 7 sano soo socday inta badan wuxuu la shaqeeyaa hay'adda UNHCR qof kasta oo qaxooti ah oo dunida ku nool dunida aan dhahayn Afrika ku nool iyo Asia wadanka Hindiya sanadkan wuu ka faa'iideysan karaa programkani insha Allah hadaa layiri program oo jaamacadaha wadanka Talyaaniga ay bixinayaan wasaaradda arrimaha dibadda kuwaasoo ay la shaqeynayaan UNHCR programkani sanadkan waxaa loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dadka qaxootiga ee degan Ethiopia India Kenya maadaama ay ku nool yihiin Kenya iyo Ethiopia iyo South Africa iyo Uganda dad badan oo Soomaaliyeed marka arday badan oo Soomaaliyeedna ay ku nool yihiin waxaan rajeynayaa inay ka faa'iideysan doonaan programkani program ardayda waxbarashada jecel weliba dhanka master programka marka aan ka hadlayno ayaa loogu deeqay sanadkan marka wadamadan aad u jeedin oo dhan dadka ku nool oo wax ku bartay isla markaana ka haysta qaar qaxootinimo way ka faa'iideysan karaan programkani marka waa program oo master program waxaa la soo apply gareyn karaa ama la furi doonaa programkani 3 March bisha soo socota ayaa la furi doonaa marka insha Allah haddii waxaan sii guda gali doonaa koorsooyinka programkani bixin doono saad u jeedaan bisha Maarso 3 ilaa iyo waxaa soo apply gareyn karta 18 Abriil ayuu furnaan doonaa programkani 2025 marka insha Allah haddii criteria iyo qaabka loo apply gareeyo hoos ayaan u geli doonaa wax yar haddii aan hoos u dego waxaa ka qayb qaadanaya programkani 38 jaamacadood oo kala duwan ayaa ka qayb qaadan doona tirada ardayda loo baahan yahay waa 67 arday koorsooyinka mise fieldiyaasha aad dooran karto waa 385 marka insha Allah criteria hoos aan u galno halka marka aad joogtid waxaad ku dhufani halkan admission criteria koorsooyinkan halkan aad ku dhufan marka admission criteria aan tagno page-kan ayaa noo soo bixi hoos haddaan u daadegno admission requirement-ga la iska rabo admission intaan gelin waxaad apply gareyn kartaa ugu yaraan 2 jaamacadood oo kala duwan baad apply gareyn kartaa tusaale ahaan haddii aad tahay economy ama haddii aad tahay medicine 2 jaamacadood oo economy bixinaya mise 2 jaamacadood oo medicine mise caafimaadka bixinaya ayaa apply gareyn karta oo kala duwan 2 jaamacadood marka probability waxaad leedahay mise inaad jaamacad hadda ku diido jaamacad kale kusoo dalbato mise 2 jaamacadood baad nasiib u hesho mise 2 jaamacadood maana ay ku diidaan marka probability-ga high weeye oo inay ku doortaan marka insha Allah haddii waxaan rajeynayaa qof kasta oo Soomaaliyeed ama gabar ama wiil kasta oo Soomaaliyeed oo programkan soo apply gareeyo inuu ku guuleysto ayaa marka insha Allah haddii admission-kana haddii aan u guda galno wadamada aan ka soo hadalnay waa in qofku u deganaadaa isla markaana uu leeyahay qaar qaxooti oo UNHCR aqoonsan intaas ilaa wadamada aan soo sheegnay waa Ethiopia India Kenya Malawi Mozambique Namibia Nigeria South Africa Tanzania Uganda Zambia iyo Zimbabwe wadamadan ayaa ka qayb qaadan doona halka ardayda degan ayaa soo apply gareyn kara lambar 2 shuruudda labaad waa in ardaygu uu wato valid admission oo marka aan ka hadlayno degree-ga waa inaad degree-ga ku ahaada mid valid goorma oo hoos ayaan ka arki doonaa insha Allah haddii waa in qualification-kaaga uu valid u ahaada tusaale wixii laga dalbaday score-ka iyo weliba sanadkii la dalbaday waa inay isku aadaan waa in lagu dooran karaa marka in ardaygani uu
master u baran karo. Okay, wadamada qaar jaamacadaha qaar ayaa waxay leeyihiin ardayga haddii pointiga su ka hooseeyo okay master ma baran karo. Okay, waayo qualificationka xeerarka u degsan. Okay, talyaani idan way leedahay. Marka qualificationkiisa waa in uu ahaado mid valid ah si uu u apply gareeyo master program. Qodobka saddexaad mise requirementiga saddexaad ardayga waa inuu GPA-giisa uu 3 u ahaada. Marka loo fiiriyo wadanka uu kasoo qalan jebiyey okay systemkiisa kaas oo u qalma malweyn marka tableka hoos ee wasaaradda waxbarashada ee Talyaaniga. Marka halka furbal halka daa ku dhufano warqad baan soo bixi doonto. Warqadani hoos u deg. Okay, cabir baa jiro. A-da waxay la mid tahay 30, B-da waxay la mid tahay 38, 28 baan u jeedaa. C-da waxay la mid tahay 26, okay, D-da waxay la mid tahay 23, E-da 18. Hoos u deg bal. Okay, meesha u dambaysta. Okay, mamisa comparable qaabkaas ay u xisaabiyaan. Marka wadamada qaar waxay xisaabiyaan okay tira xisaabiyaan wadamada qaarna A iyo B ba xisaabiyaan. Marka wadamada hadda aan ka warhayo sida Spain iyo Ethiopia systemkooda Spain waxa la dhaho 30 ma jirto 1 up to 10 bay xisaabiyaan. Okay, Ethiopia waxay xisaabiyaan 4 bay xisaabiyaan 1 up to 4 bay xisaabiyaan. Marka trigas qofka Ethiopia degan oo kale inta badan wuu fahmi karaa. Okay, wadankaaga hadduu maanaa 100 u xisaabiyo 60 70 80 90 hadduu xisaabiyo A iyo B iyo C oo ku filan marka warqadan ayaa tix raacaysa insha Allah. hoos haddaan u deg qodobka afraad haddaan u guda galno oo requirementiga ah waxay leeyihiin ardayga digrigiisu waa in uu helaa kadib 2020 ogow baa lagu yiri jaamacadaha qaar ma laha time limitation of graduation waxa la dhahaa ma jirto. Okay, marka individual application ay ku xiran tahay qofka soo apply garanayo iyo meeshuu apply garanayo ku xiran tahay jaamacada. Qodobka shanaad waa specific admission requirementiga oo looga baahan yahay waa inuu la kulmo ardayga okay master program marka laga hadlayo. Qodobka lixaad waa inaad weliga isku diiwaan gelinin jaamacadaha ka qayb qaadanayo programkani mise Talyaaniga. Okay, qofka mar uu waxbarasho isku diiwaan geliyay jaamacadaha Talyaaniga okay ma soo apply gareyn karo. English no la iska rabaa. Okay, professional English language is required. Laakiin programka saan arki jirnay ma jirto waxa la dhaho shahaadooyin isku xirayo. Waa inuu qofku uu ku hadli karo luqadda bis waa intaas weeye. Okay, ani laftayda 2 jeer baan ku guul dareystay programkani. Marka hadii sanad aad guul dareysato macnaheedu ma aha inaad macnaha niyad jabtid. 2020 waa soo apply gareeyay 2021 waa soo apply gareeyay. Marka 2022 ayaa program kale oo scholarship aan helay oo Europe. Marka insha Allah waxaan rajaynayaa insha Allah inaad idin guuleysan doontaan. Sanad haddaan niyad jabto macnaheedu ma aha dunida dhamaadkeeda mise hadafkii aad lahayd inuu ka burburo insha Allah dalil. Programka waad u jeedin waa 3 day oo ka soo hadalnay 3da March ilaa iyo 18ka Abriil. Okay, 12ka duhurnimo ayuu dhacayaa insha Allah. wixii Abriil 18keeda 2025 marka ay tahay 12 duhurnimo ayuu programkani uu dhacayaa. Mas'al 2 saac marka lagu diro marka aan ka hadlayno time ka waqtiga Talyaaniga 2 saac ayaan Europe iyo Africa ay kala xoreeyaan. Marka 2 saac dheeraad ayaa haysa 8 saac duhurnimo oo kale ayuu dhacayaa marka Africa la joogo. waliba East Africa markaan ka hadlayno Soomaaliya. Okay, haddaba documentiga la iska rabo marka soo apply garanayso programkan waxa kamid ah kow in ardaygu qofka ama soo apply garanayo waa inuu wata okay ID-ga qaxootinimada waa inuu wata oo soo apply ku soo diro application-kiisa certificate-ka oo macnaha master-ka ku soo apply garanayso degree baa loo jeedaa degree waa inaad wadataa transcript-gaaga mise dhibcihii okay waa inaad wadataa oo aad ku soo baastay jaamacadaada transcript qofkaas 4 waa inuu GPA documentation-kan waa inuu ku soo daraa. Okay, waa inuu CV uu ku soo daro program markuu soo apply garanayo motivation letter warqad macnaha sababta aad u codsanayso okay aad u xiisaynayso programkani iyo sababta ka dambeyso inaad soo codsato aad ku sheegaysid ma sabab qaxisid iyo waliba documenti kale oo la xiriira programada okay specific programka jaamacadaha maadaama ay kala duwan yihiin
muhiimaddu waa lixda kore weeye laakiin jaamacadaha qaar marka aad gasho oo apply gara is tiraahdo documenti dheeraada inay kaa dalbadaan sida reference letter oo kale inay kusoo daraan baa laga yaaba warqado kale inay kaa codsadaan baa laga yaaba marka waxaad jeegarayni applicationka requirementiga jaamacadda aad apply garanayso labada jaamacadood documentiga aad u dirayso si fiican u fiiriyo waxaa laga yaabaa inay kala duwan yihiin marka documenti ay kaa codsadaan marka waa inaad waxaa lagu yidhi halkan marka saa haddaan sheegnay jaamacadaha markaan ka hadlayno waa optional weeye okay waa ku dari kartaa mise waa ka tegi kartaa markaan ka hadlayno okay jaamacadaha marka waxay ku xiran tahay qofka qodobkani wuxuu leeyahay haddii ardaygu uu soo diro mise qofku uu soo diro documenti been abuur ah hadduu soo diro waxaan samayn doonaa qofkaasi magaciisa iyo systemkiisa oo dhan inuu opportunity mise fursadaha mustaqbalka ee programkan in laga kansalo mar labaade waa in aan UNHCR aan u sheegnaa qofkaasi meeshaas uu joogo wuxuu noo soo diray documenti been abuura marka booliska waddankaasi iyo UNHCR ayaa waxay ka qaadi doonaan tilaabo qofkaas marka halis weeye ha isku soo direen documenti been abuura mise shahaado qof kale uu leeyahay inta aad manaha aad soo hagaajiso magacaa ka bedelatid okay ha soo dirin waayo waxaa laga yaabaa inaad habsi ku mutaysatid inaad manaha dee arrintaas ay noqoto arrin weyn oo khatar gelin karto mustaqbalkaaga iyo noloshaada insha allah daadiri deadline-ka soo celcelinayaan inta badan okay marka waan ka boodaynaa okay hoos baan u digaynaa qaabka loo doorto qofku inuu ku guuleysto horta boqolkiiba boqol ma tiriyaan oo dhibico boqolkiiba waxay tiriyaan 80 bay tiriyaan programkani oo talyaaniga ah ardayga marka imtixaanka laga qaadayo documentigiisa evaluation lagu sameynayo boqolkiiba 80 bay jeegarayaan 80 okay marka 80 ka waxay u kala qaadeen ardaygan hadduu excellent hadduu ku ahaa academigiisa mise maadooyinkiisa iyo jaamacadda okay waxay ku qiimeynayaan documentigaasi boqolkiiba 20 bay siinayaan already waxay jeegaranayaan CV-gaaga ay jeegaranayaan iyo experience-gaaga iyo weliba qofkani xirfadaha uu leeyahay toban bay ku siinayaan already sodomaad haysataa adigoo imtixaan waxba lagaa qaadin lambar 3 waxay jeegaranayaan okay degree-gaagii oo hadda aad dooratay iyo masterkaaga iyo degree-gaaga hadday yihiin isku mid tusaale haddii aad ahayd business okay management haddaad tahay oo business aad dooratid mise businesska haddaad ahayd business aad dooratid mise haddii aad ahayd nursing aad dooratid okay boqolkiiba waxaa heli 10 points marka waxaa loo baahan yahay markaad wax dooranayso si programka aad ugu guuleysto 10 dhibacood aadan luminin waa in aad programkaaga oo degree-gaaga iyo programkaaga oo masterkaaga waa inay related ahaadaan mise isla xiriiraan halkaas marka 10 dhibacood baad ka heli marka already meeqaad haystaa marka 40 dhibacood baa halkaad ka heli programka 80 bas wey okay haddaba haddii candidate-ka uu helo wax ka yar 25 hadduu uu helo okay second process-ka interview-ga laguma casuumayo qofkan sababtu waa maxay already wuu ku dhacayba marka si aadan u dhicin horta kow haddii dhibcahaagu ay fiican yihiin 20 waad haystaa CV-gaaga hadduu uu wanaagsan yahay already aad tahay qof macnaha xirfado kale leh computer yaqaano mase diblooma kale wata mase uu soo shaqeeyay 3 sano 2 sano uu soo shaqeeyay okay CV-ga marka waa inuu noqdo CV stronger ama xoog leh waa inuu noqdo 10 dhibcood programka aad dooranaysid waa inuu noqdo programka masterkaaga iyo degree-gaaga waa inay la xiriiraan isla xiriiraan baan ujeeda insha allah daali marka 25 dhibcood waa easy way okay candidate hadduu documentigiisa uu soo gudbiyo isla markaana 25 dhibcood uu helo waxa lagu casuumayaa okay interview lagu casuumayaa asaga oo emailkiisa loogu soo diri doono waqtiga iyo goorta laga qaadayo interviewga labaad marka qofku uu gudbo waa online interview candidate-ka marka interviewga expertiga masadada oo maana jaamacadaha ka socda ayaa loo soo diri doona okay english baa maanaha la jeegareyn doona insha allah waxyaabaha la jeegareyn doona waxaa ka mid ah skillkiisa xirfadihiisa aqoontiisa oo subject uu leeyahay iyo xeerka ingiriiska uu ka taagan yahay qofkani marka intaas marka laga jeegareeyo okay 40 dhibcood baa lagu qiimeyn doonaa marka 40kii hore iyo 40kana la isku dari marka arday kasta ugu yaraan haddii programkan uu soo dalbado 20 arday soo dalbado okay 20kaas arday ay programka soo dalbadeen waa in qof kasta dhibcihiisa marka la fiiriyo arday ugu dhibac badan baa la qaadanaya marka ugu guuleysanaya insha allah marka waxaan rajeynayaa inaad ku guuleysataan programkani program oo
aad fani u ah weeye haddii qofku xirfado uu leeyahay oo macnaha academigiisu excellent u ahaa CV-gan uu iska soo xoojiyo marka dee waa waxyaaba easy weeye inaad ku guulaysato laakiin maadaama wadamo badan ay ka qayb gali doonaan programkan 2025 waxa laga yaabaa tartanka inuu high u noqdo laakiin adiga naftaada aamin ilaahgaaga aamin insha allah dare inaad guulaystaan rajaynayaa ardayda Soomaaliyeed la wadaag programkan insha Allah waxaan isku dayi doonaa program kasta oo scholarship ah inaan idin la soo wadaago mar kasta YouTube kana subscribe saaro gabalaalka furo insha Allah scholarship badan baa ku jiro inaad ka faa'iidaysto kuwa kalena waan soo wadaa insha Allah aad baa idin salaamaya assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh